waa maxay damaca Itoobiya ee magaalo xeebeedka Saylac ee Somaliland halkii ayuu ka soo bilaabantay fikirka Itoobiya ee ku aadan badaha Soomaaliya halkeese ayay marayaan dhaqdhaqaaqyada Itoobiya ee qabsashada badda Soomaaliyeed waa muuqaalkeena maanta ee soo dhawow daawade taariikhda geeska Afrika ayay ku qeexan tahay damaca lixaadka leh ee Itoobiya u hayso badda iyo bariga Soomaaliya hadal uu barta Twitter-ka soo dhigay General ciidamada Itoobiya General Birhanu Jula ayaa hoosta ka xariiqay in aanay inaba Itoobiya u dulqaadan karin dalal meelo fogfog ka imanaya oo badaha jaarkeeda sidii rabaan wax uga qabsanaya waxa uu intaa raaciyay Itoobiya oo 100 milyan ay ku nool yihiin si nabad la'aan kuma jiri karto taariikh ahaan iyo xilligan xaadirka ah Itoobiya marnaba kama ay gaabsan damaceeda ku aadan badweynta Soomaaliya iyo arliga Soomaaliyeed hadalka generaalku waxa uu ku soo aaday xilli uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u socday Bahedar Forum 11 bishii 9 2018 iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo dhawaan kaga dhex dhawaaqay fila Soomaaliya in labada dal ay midoobayaan Bahedar oo ah magaalo madaxda dawlad deegaanka Axmaarada waxaa ku kulmay saddexda hogaamiye ee Soomaaliya Itoobiya iyo Eritrea halkaas oo uu si fudud ra'iisul wasaaraha Itoobiya ku dhawaaqay in ay saddexda dal midoobi karaan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa uu mar waliba ku celceliyaa midowga labada dawladeed ee kala madaxa bannaan Soomaaliya iyo Itoobiya haddii arrintan la waayo waxa uu qorshaysan in ay xoog ku qabsadaan badweynta waqooyiga Soomaaliya ee Saylac aan haddaba xog ka bixin Saylac waa magaalo xeebeed taariikhi ah oo ku taalla waqooyiga bari ee gobolka Awdal waxayna aad ugu dhowdahay waddanka Djibouti oo u jirta 120 kiiloomitir magaalada Saylac oo ah mid qadiimi ah oo aad u taariikh dheer ayaa la aqoonsan yahay inay jirtay tan iyo waqtigii ka horreeyay soo bixitaanka diinta Islaamka midaasi oo ah goobaha ugu taariikhda dheer qaaradda Afrika iyada oo ay ku yaalaan meelo fara badan oo taariikhi ah hase yeeshee ka turjumaya taariikhda geeska Afrika gaar ahaan Soomaalida bartamihii qarnigii 9aad ayaa magaalada Saylac waxay aasaas iyo saldhig u noqotay bilowgii boqortooyadii Islaamka ahayd ee Cadal midaasi oo ka tarin jirtay deegaanadaas muddo qarni ah ilaa laga soo gaaray qarnigii 14aad markii ay gaartay meeshii ugu sarreysay ee deegaanada geeska Afrika waqtiyadii ku xigay waxaa caasimadda qadiimiga ah la wareegay boqortooyadii Cismaaniyiinta oo xukumayay tan iyo goortii ay kala burburtay boqortooyadu Itoobiya ayaa mar walba doonaysa inay qabsato Saylac laakiin muslimiinta ayaa ka difaacay waxayse hadda aragtaa sida ay iska dhaadhicisay fursad ay ku hanan karto maadaama maamulka Somaliland iyo kuwo kale oo ka jira Soomaaliya ayba iyadu u taliso marka laga reebo xoogagga jihaadiyiinta ah ee Al-Shabaab ee iyada dagaalka kula jira buugga faca weyn ee Fathul Xabash oo hadda af Soomaaliga lagu tarjumay waxa uu si ballaaran uga sheekaynayaa dagaaladii Soomaalidu ku qaadeen kuna jabiyeen Abyssinia mar kale ayaa naqdimi doona buuggan inkasta oo aanay dagaalada ka dhaxeeya Abyssinia iyo Soomaalidu marna joogsan ilaa xilliyadaas iyo dagaalo khaas ah ayaa fiiro gaar ah mudan dagaalada badankoodu waxay ku tilmaaman yihiin weerar Abyssinia wado iyo isdifaacidda Soomaalidu ay isku dayayso Mililik dhammaadkii qarnigii 19aad iyo horraantii qarnigii 20aad weeraro istaba joog ah ayay Itoobiya ku haysay Soomaaliya waxa weeraradaas Soomaalidu maal iyo nafba ku weyday si ballaaran uga soo warramay Major Iswaan warbixin oo qoray majarku 1890 waxa uu si faahfaahsan u soo gudbinaya dilka dhaca iyo kufsiga Abyssinia askarteedu ay u geysatay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan agagaarka City Jigjiga Xarshin iyo Hawdka waxa kale oo ka warramaya micilaanta Soomaalidu dareemaysay iyo dawladda Britain oo ku guuldareysatay in xasuuqaas ay u micinto Soomaalida waxaan inaba la hilmaami karin xasuuqii banka Giriyaad ee 1948 iyo 1956 waxa hadda xasuuqaas loo yaqaanaa xilligii Kanookiga waa hubkii cuslaa ee banka Tuligeed
axmaaradu la dhacday bulshada Soomaaliyeed. Xilli aan xasuuqaas ka fogeyn, waxa uu Dajasma Afwerki dab iyo holac lixaadle ku furay magaalada Qoraxay, damaca Itoobiya ee dhulka Soomaaliya. Boqor Mililik ayaa markii ugu horeysay ka dhawaajiyay damaca Itoobiya ee ku aadan badda iyo bariga Soomaaliya. Taariikhdu markay ahayd 1880 markii reer Yurubku kala qaybsanayeen dhulka Soomaaliya, boqorku damaciisa ku aadan dhulka Soomaalida ilaa tan iyo Banaadir ayuu ku andacooday, isagoo oo sheegay in Itoobiya leedahay arliga buuraha iyo Banaadir u dhaxeeya. Ilaa xilligaasna Itoobiya ayar ayay ku soo siqaysay kuna guuleysatay in ay dhul badan oo Soomaaliyeed qabsato. Waxa ugu dambeyn hawd iyo dhulkii kaydka ah reserve area lagu wareejiyay Itoobiya 1954. Si muran aanu uga iman, Itoobiya waxay ku dooday markii dagaalkii adduunka ee labaad uu dhamaaday in qaybtii Soomaaliya ee Talyaanigu gumaysanayay iyada lagu wareejiyo. Taariikhyahanada Itoobiya waxay aaminsan yihiin in boqor Haile Selassie uu ogaa in aanu helayn Soomaalida koonfureed ee Talyaanigu haystay, laakiin ay gorgortan ka ahayd si hawd iyo reserve area aan looga daba iman. Sidaasay u dhacday. Itoobiya caan ayay ku tahay sida heshiisyada loo saxeexo dabadeedna looga baxo. Waxa arrintaas daliil u ah heshiiskii Wayshal ee Mililik Talyaaniga oo la galay May 2, 1889 markii uu Mililik ogaaday in uu qaltamay oo dhulka la yiraahdo Eritrea lacag adag uu ku bedeshay. 1893 wuu dafiray wuuna ka baxay. Waxa Mililik uu ku andacooday in heshiiska afka Faransiiska ku qoran aanu khusaynin. Wuu ictiraafsan yahay, taasna Itoobiya sida ay rabtay ayay u macnaysatay. Sidoo kale boqor Haile Selassie heshiiskii isaga iyo Ingiriisku kala saxeexdeen in hawd iyo reserve area aanu shuqul ku lahayn 1950 wuu dafiray. Mar uu ka cawday dawladda Ingiriiskana waxa uu kaga dacwooday in Ingiriisku uu si khaldan u micnaystay heshiiskii ka dhaxeeyay labada dhinac. Xilligan xaadirka ah iyo arrimaha xasaasiga ah, waxa hadda xasaasi ah in Itoobiya ay rabto badda Soomaaliya inay isticmaasho. Soomaaliya marka la leeyahay waa inta loo yaqaano Jamhuuriyadda Soomaaliya, hadeerna isticmaal waa dhaaftay oo wax la taagan yahay xilli ay carabka ku dhuftaan ama ay ku celceliyaan labada dal in ay midoobayaan. Tan iyo xilligii Haile Selassie oo boqorka ahaa, waxa Itoobiya door bidaysay in Saylac dekad ay ka samaysato. Waxa mashruucaasi sii xoogaystay xilligii Mengistu Haile Mariam uu daraasad ballaadhan oo ku aadan dhinaca dhismaha jidka Saylac iyo Diridhabe uu kharash badan ku bixiyay. Arrinta Saylac waxa si farsamaysan wax uga qoray John Spencer oo la taliya u ahaa Haile Selassie. Haile Selassiena Saylac xoog ayuu ku qabsan lahaa haddaan musawac iyo casab aanu heli lahayn 1940. In Soomaaliya iyo Itoobiya la mideeyo waxa si xoogan looga hadlay kadib dagaalkii 1977 Mengistu iyo Siyaad Barre ayuu Fidel Castro isugu keenay cadan. Inkastoo meelo badan la isku afkartay, waxa kaliya ee laga gudbi kari waayay xagga farsamada sidii isu raac u dhici lahaa. Soomaali galbeed ma waxay marka hore ku beeraysaa Soomaaliya dabadeedna isku biirku dhacaya, mise sida labada dal hadda kala yihiin ayay isugu darmayaan. Xilligii Meles waxa Maxamed Ibrahim Cigaal si cad u codsaday in Somaliland iyo Itoobiya ay midoobaan. Meles oo arrintaas aad ugu farxay ayaa haddana saluugay xaalka Soomaaliya ay ku sugan tahay. Waxaanu Meles ku taliyay in la sugo xilliga Soomaaliya ay hagaagayso, dabadeedna laga fikiro in Soomaaliya oo mid ah iyo Itoobiya oo mid ah la isku daro. Mideynta Itoobiya iyo Soomaaliya ee hadda mudane Farmaajo iyo Abiy Ahmed ay wadaan ma aha wax markii ugu horeysay la wado, lagamana yaabo in ay noqoto markii ugu dambeysay. Arrinta isku darka ra'iisul wasaare Abiy dhowrka jeer ka hadlay, madaxweyne Farmaajona ka gaabsaday laba arrimood ayaan ka baran karnaa. Waxa Itoobiya ka go'an in aanay ku sii jiri karin gadoonka haysta xagga badda, sidaas darteedna gadh iyo gardarraba in ay marin hesho way ku dadaalaysaa. Wadahadallada ku aadan mideynta Soomaaliya iyo Itoobiya
wax hadda uun yimid ma aha, laakiin muddo ayaa la hadalhayay. Mahindisa mise waa wax waaqici ah, weli ma kala cadda. Muuqaalku intaas ayuu ku egyahay daawade. Like saar una sii share garee saaxiibadaada kale ee aan ku xidhnayn kanaalka Maxay Channel. Xogtan waxa qoray wargeyska weyn ee Wardheer News. Mahadsanid.